السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دوادة برنامج كيننا كلها لأنه حنوك كوفيد 19 كا. أنا جوا دكتور آدم مدح أورك دخاتير الصومالية أمريكان كا. ما أنتو حكى لنا حنوك كوفيد 19 كا بوشة الصومالية سلو سامية عبسيدا إيو دلعين تام عيبين تا كدلته حنون كني. محيطها عبسيدا عيبين تام بدلعين تو. عبسيدا وحويان قفكو مركو كعب صودا حنونكي. oo isleeyahay xanuunka ku soo gaari kara ceebeynta ama dalacayntu waxa weeyaan qofkii oo la ku tilmaamo inuu xanuunkii qabo oo loo arkay in ceebtay xanuunkan qofkii qabo sidee bay labadaas arimood u saameeyeen ummadda Soomaaliyeed labada arimood cabsida iyo dalacaynta ama ceebeyntu way isla socdaan ceebeyntu waxa ka timaadaa markasto xanuun ummadda ku aad ugu fidayo oo qofkii uu ka cabsoonayo xanuunkii inuu soo gaaro iyo marka xanuunkii yahay xanuun khatara oo waxyeelo weyn dadka u gaarsiin karaya khaasan xanuunku markuu yahay xanuun dilaaya ayaa maxay ahayd dadku cabsidu ku dhalataa iyo marka xanuunkii dawo aanu lahayn talaalna aanu lahayn cabsiduna markaas way timaadaa tan kale ceebeynta ama dalacayntu siday ku timaadaa ceebeyntu waxay ku timaadaa cabsida ay ka timaadaa qofkii markuu ka cabsoodo xanuunkii ee bilaadoodaha ee loo dhimanayay waxa dhacday in qofkii kale xanuunka qabay inuu iska ilaaliyo markuu iska ilaalinayo wuxuu ku tilmaamayaa qofkaasi xanuunkaas uu qaba uu ku dalaceynaya oo la ku ceebeynaya qofkii xanuunkii qabay waxa dhacda inaana xanuunkii markaa uu sheegan kari waayo oo soo bandhig umadiisa soo bandhig kari waayo oo isqariyo oo ceeb ay ku noqoto inuu xanuunkii uu sheegto xanuunka uu qarinaya dhibaatada aad u geysanaysa waxa weeyaan in ummaddu iska dhaxgalo tiyo la ogeyn inuu xanuunkii qabo oo xanuunkiina saa ku fidi karayo siyeebu qofka bil aadanku u dareemi kara cabsida amba uga muuqan karta cabsidu qofku marka cabsidu gasho xanuun kasta oo dilaa oo dawo lahayn cabsi qofka bil aadanka way ku beertaa laakiin cabsidu marka xad ay gaadho ayay dhibaato tahay xanuunkii qofku garan waayo sida loo kala qaado ka soo qaad xanuunkii qofkii markii la yiri guriyaha fadhiya waayo xanuunka inuu dhici karaya qofkii isoo gurigiisa ka fadhiya ayuu kana cabsi dheeraad ah sii qaaday daaqadii buu iska xiray wuxuu habada ay soo galaysa waxa dhacday xitaa hadduu telefoonkii qaban waayo mar qaarkood waxa dhacday in soo banaanka u baxayo oo cidna aan is arkayn inuu gacmihiisa gloves inta uu sito oo gacmihiisa saas u ilaalinayo oo uu malaynayo maalkan virusku inuu gacmaha ka gelayo marka cabsida dheeraadka qofka bini'aadanka waa ka dareemi karaa ceebeyntuna waa la arki karaa qofkii marka xanuunkiisa uu sheegan kari waayo ee isqariyo ee ceeb loo arko wixii xanuuno badan adduunyahan soo maray oo ceebeyn la ka qaaday baa jirta sida xanuunka AIDS oo kale markii berigii uu soo bixi jiray dadku cabsi weyn ka qaadeen leeyli xanuunku dawo ma laha markii dambana ceeb isku bedelay oo noqday qofkii xanuunka qabay inuu isqariyo oo ummaddu soo dhaxgali kari waayo tani markaasi waxaan ka sii hortagaynaa inaana arintaas ay ka dhalan xanuunkan covid 19 dadku aan ceeb aanay u arag sidee baa markaa sameyn karnaa ugu hortagi karnaa ceebeynta iyo cabsida waxa looga hortagi karaa cabsida iyo ceebeynta tiyo wararka xunxun la iska ilaaliyo ee la isdhex marinayo social media-da hadday WhatsApp-yada noqoto amba wararka kale la isku dhiidiibayo iyo maxay xanta dadku wararka isku keenayaan ee leeyahay sidaas dhacday sidaas jirta amba heblaaya xanuunkii qaaday iska ilaaliya amba gurigu xanuunkii soo galay oo dadkii guriga deganaa amba deriska cabsi ay galaan oo ilaada xanuunkii baa soo galay taas la iska ilaalin karaa tiyo la iska ilaaliya hadalada xunxun ee la isdhex marayo waa kale iska ilaalin karaa saadoo naftaada ku mashquuliya waxyaabo kale adoo cunto fiican cuna oo jimicsi fiican sameeya oo hurdo fiican seexda oo naftaada happy ka dhiga oo naftaada faraxsan oo waxyaabihii qabsan lahayd iska qabsanaysa way ku ilowsinaysaa cabsida badan iyo dalacaynta isay adigoo xiriir la sameeya dadka kale qaraabada asxaabta intii ay garanaysay adigoo iskala sheekaysta oo xiriiriya qofka xanuunsanaya ee xanuunkiisa qarsanaya oo aad tustid in caadi tahay qof inuu xanuunsan karo oo wax u qaban karaysid oo wax u soo gadi karaysid oo gurigiisa u soo dhigi karaysid waxa kale la socotiin caruurta
way ku dhici kartaa cabsidu marka calaamadaha cabsida carruurta waxa ku dareemi kartaa ilmihii oo su'aalo badan ku weydiinaya amba wararka aad u xiiseynaya amba online internetka gelaya amba iska ilaalinayna wax kasta uu taabsado oo gacmihiisaasi ku dhigsan cabsidaas ilmaha yar marka dareentiin la sheekaysta ilmihi yaraa u sheega xanuunka sida loo kala qaado si aan cabsi weyn aan ilmihi ku dhalan waayo hurdo la'aan baa ku dhici kara saxiitaa marka la socda calaamadaha cabsida ee ilmuhu muujinayo ina garatiin xanuunkani sida loo kala qaadi karo iyo xanuunkan wuxuu yahay taasaa ka saaraysa meesha hadhow tole cabsida iyo dalacaynta amba ceebeynta xanuunku wato xanuunka COVID-19ka in ogsoonaatid in la ku kala qaadi karo neefta qof xanuunkii qabay oo kugu ag neefsaday oo viruskii sanka amba afka ka galay oo sambabada kugu dhaadhacay saasa lagu kala qaadi karaa gacmaha haddii aad soo taabsid viruska gacmaha kaama gelayo waa iska dhaqaysaa hadhow toole yaana la cabsoon oo la moodin gloveska la xiran yahay laftigiisa viruskii baa ku sidataa oo khatarta u sugan tahay waxa weeyaan hadday silaalin weydid gloveskaasi amba bahla gacmaha gashatay sanka amba indhaha haddaad soo taabsatid viruskii baa isku gudbinaysaa gacmaha ma galo ee neefta ayaa lagu kala qaadaa iyo adigoo indhaha iyo sankii afka taabsada xaqiiqada haddaa garatid sida loo kala qaado cabsi kuma qabsanayso waana islaalin karaysaa ina rumaysatiin oo u ogolaatiin qofka hadduu ku yidhaahdo waa xanuunsanayaa gooni baan u baxayaa gurigaan isku ilaalinayaa in ceeb loo arka maaha oo la yidhahdo xanuunkii baa ku dhacay in la xiriiriyo qofka xanuunsanaya oo telefoonka la ku baco oo loo sheego inuu oo loo duceeyana qofkii qof kale la soo joogay oo xanuunsanaya isaguna inuu islaalin karo oo yidhaahdo iga fogaada waayo waxa dhici karaysa inuu xanuunka iga soo baxo oo ana ceeb loo arag oo wixii la ka wada sheekaysan karo saasa looga hortegi karaa cabsida iyo ceebeynta xanuunkan COVID-19 ku wato ee bulshada Soomaaliyeed imika ku fidaya aad baa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh